intaa odayaashu yidhaahdeen ayuu maanta shirkanaadu keenna ahaa waa ka midaysannahay intaa ay yidhaahdeen baaq nabadeed ayaanu u diraynaa degmada ceelafweyn walaalaa ku dagaalamaya sidaa odayaashii iga horrey sheegaan waa dad dhaleeye ah dhaliyo dhasheeda dad waxay yihiin maanta laisu sheegaya ma aha dad kale maarmayo meel kala tegayana ma aha ilaahay baa meesha ku wada uumay colaad dheer imika way ku jireen muddo sanad iyo dheeraada ama 2 sano gaaraynba khasaare in aynaan u baahnayn oo khasaare weyn oo dhimasho leh oo barakac leh oo colaad iyo cay dheerle ayaa ku dhacay dadka naxdin weyn ayay qaranka iyo qof walba ku tahay maanta haddana dagaal kale ka bilowda halkii sidaa ay sheegeen odaashii iga horreeyey annagoo saddexdii xisbi qaran ah oo qarankii oo dhan ah waxaanu usoo jeedinaa baaq nabadeed in caqliga la keeno oo colaadda la joojiyo oon dhiig damba daado sidaa la sheegay qaranka oo dhanna waxaan ugu baaqanaa inay ka qayb qaataan sidii nabadda loo xidhi lahaa colaadda la joojin lahaa anigu koow waxaan siinayaa cidda gurmudka looga baahan yahay ee koobaad ee colaadda dabinteeda inay kow ka noqotay inay saxaafadda ti waayo saxaafaddu iminka aynu hadlaynaa way meel walba gaadhsiinaysaa wixii wareeg wanaagsan iyo nabad raadinta iyo isu soo jiididda kow bay saxaafaddu ka noqonaysaa marka idinka waxaan idka codsanaya anagu saddex xisbiya inaad kow ka noqotaan nabadda taa iminka socota colaadda dabinteeda iyo kuwa kalaba laba xukuumaddu way dadaashay waa kusii boorinaynaa inay ka howlgasho joojinta iyo nabad dhiska colaad joojinta iyo nabadeynta shirkani maanta siduu ku yimid markii dhiilada soo dhacday shalay jibcihii aniga cabdiraxmaan baa kulannay arrintaan wax iska weydiinay waxay noola muuqatay in saddexdii xisbi iyo xukuumad iyo bulshadaba aynu ka howlgallay in arrintaan laga wada howlgalo xalay waxaanu arrinta axkeenu ka bilownaa waxaanu aynu guurta ka bilowna guddoomiyaha guurta xalay labadaydu waanu aragnay hado guddoomiyaha guurta inta aan idiin sheeginay see loo howlgalaa baanu ku wada howlgalay xukuumaddana waa wargelinay waananu wadaynaa qaranka oo dhan hadday tahay madax dhaqameed hadday tahay mushtar hadday tahay culimo hadday tahay dhalinyaro maanta nin kastoo saxaa xisbi taageeraya ama talada raacaya waxaanu ka codsanaynaa inuu u jeedsado nabadeynta dalka oo dhan gaar ahaan taa maanta wax ka qabashadeeda waa naga go-aan waayo coladaasi waxay leedahay weji aada iyo aada khatar u ah xilliga inagu beegantay muddaday qaadatay siday u demi weyday waxay u baahantay in loo guntado baaqaygu maanta waa kaa qaranko dhanna waanu ka codsanaynaa waa ugu celinaa dadka deegaanka dhibaatada ka dhexaysa inay caqliga keenaan saa uu sheegay odaygii iga horreeyay cabdiraxmaan seedi iyo isosodo iyo walaal iyo ilmaabti iyo ilmaadeen xoolaha wada leh beeraha wada leh daaqa wada leh magaalada wada leh dee adeer xaggay kala qabanaya inaf iyo sinaf bayna gaalada moogta inay nagu filan dhiig iyo waa la daadiyey iyo dhibaatooyin ka dhacday meesha marka waa baaqaran waana go-aan saddexda xisbi inaanu arrintaa gurmadkeeda meel walba u gacan gelino ummadda dhan waa ka baqsan waanu ka codsanay nagala howlgalaan saxaafadduna hormood ka noqoto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu